بسم الله الرحمن الرحيم وصباح نما أحدها لبدا بيشا نوفمبر سنة كان لبكون لباتن يشن أو كوباغن كوبية تمانك بيشا جماد الأول سنة كان أفر بقول أفرتنية تضبا تاريخ دي هجرية كسو دوادا مركله إيه برامجكي حرشدا وراركا قضبدا ساكا برامجك آن إذن كوغوها إنانا وحا كمدا ترام أو دقال ugu جبي نيجيريا isla markaasna sheegay in uu diyaar u yahay inuu ciidamo u diro dalkaasi isagoo dhaliil baan u jeedinaya dawladda Nigeria haddaba maxay tahay sababta ka dambaysa arrintan warbixin ayaan idinkaga haynaa Hamas oo war culus ka soo saartay xadgudubyada Israa'iil ay ka wada Gaza ee lidiga ku ah heshiiska xabad joojinta ee la gaaray bishii hore maleeshiyada RSF oo kordhisay weerarada ay ka wado gobolka Kordofaanka Koonfureed iyadoo gudoomiyaha Darfurna wacad uu ku maray in dagaalku uu soconayo ilaa iyo dhulka oo idin la xoreeyo Mareykanka ayaa si adag u cambaareeyay weerarada xasuuqa ee RSF ay ka geysatay magaalada Al-Fashir weerar toorey loo adeegsaday oo khasaare sababay oo ka dhacay dalka Ingiriiska madaxweynaha Suuriya oo Washington u tagaya in uu la dagaalamo kooxo horay uga mid ahaa dhammaan wararkan iyo weliba warar kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordha intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka xulashada wararka soo dhawaada markale daawadayaan si aad ula socoto oo hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waad ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka saaka waxaynu ku bilaabaynaa colaadda waddanka Suudaan oo warar kala duwan aan idinkaga hayno waxaan ku hormaraynaa wararkii ugu dambeeyay halkaasi oo lagu soo waramayo in 12 qof lagu dilay tiro kalena lagu dhaawacay weeraro ciidamada gurmadka degdega ah ee loo yaqaan RSF ay ku qaadeen xeryaha barakacayaasha ee gobolka Kordofaanta Koonfureed sida ay sheegtay shabakada dhaqaatiirta ee dalka Suudaan shabakadu waxay faahfaahisay in RSF ay duqeysay xarunta ururka caalamiga ee socdaalka ee magaciisa loo soo gaabiyo IOM ee magaalada Kadugli taas oo sababtay dhimashada 5 caruur ah sidoo kale waxa ay tilmaamtay in RSF ay beegsadeen xerada barakacayaasha ee deegaanka Al-Abasiya ee gobolka Kordofaanta Koonfureed halkaasi oo 7 qof lagu dilay waxaana ka mid ah haween iyo caruur ciidamada dawladda Suudaan ayaa dhankooda sheegay in duqeymo xagga cirka ay ku aqaadeen saldhigyada RSF ee waqooyiga iyo galbeedka Kordofaan gudoomiyaha gobolka Darfur Mini Minawi ayaa ku celiyay in cadaalad la marsiin doono kuwii ka dambeeyay dambiyadii ka dhacay Al-Fashir wuxuuna sheegay in dagaalku sii socon doono ilaa dhul kasta laga xoreynayo RSF dhinaca kale afhayeenka isbahaysiga uu hogaamisa RSF Ala Adin Naqdi ayaa si adag u beeniyay eedeymaha ku aadan in ciidamada RSF ay ka wadaan dilal qowmiyadeed ama xasuuq Al-Fashir isagoo sheegay in warbixinada qaramada midoobay ay yihiin kuwa waxyeello leh isla arrimaha wararkan la xiriira Mareykanka ayaa lagu soo waramayaa inuu si adag u cambaareeyay xadgudubyada waaweyn ee RSF ay ka geysatay Al-Fashir wuxuuna ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo dilalka iyo colaadda ku salaysan qowmiyadaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa shaacisay inay aad uga walaacsan tahay xaaladda dadka rayidka iyadoo ku boorisay labada dhinac waa RSF iyo ciidamada dawladda in lagu noqdo wadahadal siyaasadeed maadaama uusan jirin xal ciidan oo suurtagal ah in ka badan 10,000 oo qoys ayaa ka barakacay magaalada Al-Fashir hal maalin oo kaliya iyadoo hay'adaha gargaarka ee caalamiga ah ay ka digayaan in dagaalku sii socon doono taas oo sababi karta barakac baasan oo ku wajahan xadka Jad toddobaadyada soo socda dagaalka u dhaxeeya ciidamada dawladda Suudaan iyo kooxda RSF ayaa socday tan iyo 15 Abriil 2023 mana jiro dadaal dhanka diblomaasiyadda oo ilaa hadda suurta geliyay xabad joojin waarta iyadoo dadka shacabka ay sii wadaan in ay noqdaan kuwa ugu badan ee dhibaatadu ay saameynayso
imikana Britain wararka ka imaanaya gobolka Cambridgeshire ee dalka Britain ayaa waxa ay sheegayaan in dhowr qof lagu weeraray toorey gudaha tareen ku soo jeeday magaalada Haddington tareenka ayaa si degdeg ah loo hakiyay iyadoo booliiska iyo ambulance-ku xalay oo idil ay halkaasi gaaf wareegayeen booliiska ayaa xaqiijiyay in 2 nin la xiray kuwaasi oo lala xiriirinayo weerarkan faahfaahinta ku saabsan aqoonsigooda ama ujeedkooda weli lama shaacin hay'adaha gurmadka caafimaadka ayaa sheegay in dhowr qof loo qaaday cisbitaalada balse weli lama caddayn tirada saxda ah ee dhaawaca ama heerka uu gaarsiisan yahay dhacdadan ayaa weli la ogeyn haddii ay jiraan dhimasho waxaana xaaladan lagu sifeeyey mid degdeg ah oo wada cabsi ku fidaysa bulshada iyadoo lagu soo warramayo in dadkan safar ay ku jireen markii la weerarayay ra'iisul wasaaraha Britain Keir Starmer oo ka hadlay dhacdadan ayaa ku tilmaamay mid argagax leh oo aad u walaac gelinaysa bulshada wuxuu sheegay in falkani argagax leh uu ka dhacay tareen ku dhow Haddington oo ah wuxuu yiri waa mid si weyn looga murugoodo fikirkaygu wuxuu yiri iyo qalbigayga wuxuu la jira dhammaan dadka arrintan ay saameysay wuxuu u mahad celiyay adeegyada degdega sida u dhaqsiyaha badan ee ay u haalgaleen booliiska ayaa lagu wadaa inay soo saaraan faahfaahin la xiriirta sababta ka dambaysa weerarkan iyo ciddii ka dambaysayba tahay wararkaasna intaas ayaynu kaga gudubna waxaan u gudbaynaa goordhow madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ku hanjabay inuu ciidamo u diri doono waddanka Nigeria maxay tahay sababtu waxaan kaloo idiin haynaa madaxweynaha Syria oo Mareykanka tagi doona iyo warar la xiriira Mareykanka Gaza laakiin aynu ku hakanno soo dhawaada mar kale daawadayaal wali waxaad la socotaan barnaamijkii xulashada wararka oo subaxnimadan axadda ah toos idinkaga imaanaya istuudiyahayaga koowaad barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube-ka Facebook-ka Twitter-ka iyo Telegram-ka warbixino qoraal ah warar faallooyin iyo macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan bogga internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com ku xirna HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka waa hagaag sheekada way noo soo socotaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ku hanjabaya in ciidan u diri doono waddanka Nigeria isla markaasna ciidankan halkaasi dagaal ay u tagi doonaan maxay tahay sababtu waanu iman doonaa warkaasi iyo weliba duqeyn Israa'iil ka geysatay waddankaasi Lebanon oo dhimasho dhaawac la soo warinayo laakiin markan aynu eegno bal dhanka Gaza halkaasi oo warar soo baxaya ay sheegayaan habeennimadii xalay ciidanka Israa'iil gaar ahaan ciidamada ku sugan dhanka waqooyiga inay madaafiic ku garaaceen deegaanka yara Baytallaahiya ila wareedyo Falastiiniin ayaa sheegaya in madaafiicda ciidanka Israa'iilta lagu duqeeyay dhanka Baytallaahiya waqooyiga Mareykanka Gaza ilaa hadda lama soo sheegin qasaaraha ka dhashay weerarkaasi waa hagaag dhinaca kale ururka Hamas ayaa war soo saaray lana xiriira arrimahani afayeen u hadlay ururka Hamas oo lagu magacaabo Hazim al-Qasim ayaa waxa uu xaqiijiyay in dhaqdhaqaaqu uu diyaar u yahay in uu baadi goobo meydadka meelaha ku jira xariiqa jaalaha haddii la heli karo qalab iyo agab ku habboon baadi goobka isagoo ku eedeeyay Israa'iil inay ka meermeerayso bilowga wejiga labaad ee heshiiska al-Qasim wuxuu sheegay in Hamas ay kala hadashay dhexdhexaadiyaasha iyo kooxaha kale ee la shaqeynaya sidii loo dhameystiri lahaa wejiga labaad isagoo xusay in dhaqdhaqaaqu ku baaqay in la dhiso guddi taageero bulsho oo ka kooban shakhsiyaad lagu heshiiyey oo magaalada Qaahira si ay markii shirku uu socday si wuxuu yiri ay ula wareegaan maamulka Mareykanka Gaza dhanka Lebanon 4 qof ayaa lagu soo warramayaa in la dilay 3 kalena lagu dhaawacay weerar diyaarad aan duuliye lahayn oo Israa'iil ay ku qaaday gaari ku sugana deegaanka Kafar Romani ee koonfurta Lebanon sida ay warisay warbaahinta waddanka Lebanon ila wareedada ayaa waxay sheegayaan in bartilmaameedka weerarka u ahaa shakhsi ka tirsan cutubka qaaska ah ee kooxda la yiraahdo Ridwan oo ah ciidan ka tirsan ururka Hezbollah waa hagaag sheekada Trump inoo soo socota laakiin markan waxaynu eegaynaa dhanka Syria war ka soo baxay madaxweynaha kumeel gaarka ee dalka Syria Ahmed al-Sharac ayaa la filayaa in uu booqdo magaalada Washington dabayaaqada bisha November si uu saxiixo heshiis rasmi ah oo Syria ay ku biirayso
isbahaysiga caalamiga ah ee Maraykanku hogaaminayo ee lagula dagaalamayo kooxda Daesh ama ISIS. warbixintan waxaa xaqiijiyay ergey gaarka ee Maraykanka u qaabilsan Syria Tom Bragg oo la hadlay saxaafadda xilli uu ka qayb galayay shir ka dhacay magaalada Manama ee caasimadda waddanka Bahrain. mar la weydiiyey Axmed al-Sharac in bishan uu booqan doono Maraykanka waxa uu ku jawaabay haa, isagoo intaa ku daray in safarka u badan tahay in uu ku dhamaado saxiixa heshiis ku saabsan ka qaybgalka ciidamada isbahaysiga ka hortaga waxa loogu yeero argagixisada. heshiiskan ayaa u muuqda mid muhiim u ah maamulka cusub ee Syria maadaama uu calaamad u yahay in dalkaasi dib loogu soo celinayo saaxadda sida hadalka loo yiri diblomaasiyadda caalamiga kadib sanado colaado gudaha ay ka aloosanaayeen. ku biiritaanka isbahaysigana ayaa la rumaysan yahay inay soo dedejin karto taageero ciidan iyo mid dhaqaale oo ka timaada Washington iyo dalalka kale ee reer galbeedka. isbahaysiga ka dhanka ISIS ayaa la aasaasay 2014 welina wuxuu ka howlgelayaa Syria iyo Ciraaq. inkastoo kooxdaasi si weyn loo wiiqay sanadihii u dambeeyay, haddana safarka Axmed al-Sharac ayaa noqon kara midkii ugu horeeyay ee hogaamiye Syrian ah oo ku tago Washington tan iyo bilowgii dagaalkii sokeeye 2011. way Axmed al-Sharac markaa kooxahan uu ka mid ahaan jiray intii uusan ka bixin oo uusan samaysan kooxdan la yiraahdo Tahrir al-Sham. marka kooxdii uu ka mid ahaan jiray ayuu hadda u tagi doonaa Washington si markaasi uu la dagaalamo. way sheeko la yaab la soo baxday saacadaha la soo dhaafay. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa wuxuu ku hanjabay inuu ciidan u diri doono waddanka Nigeria. waddan dawlad leh oo nidaam ka jiro, markaas weli wuxuu leeyahay dawladda waddankaas ayaa qaladka iska leh sababta ciidanka u dirayo. wuxuu leeyahay waddanka Nigeria waxaa lagu dhibaateeyaa oo lagu xasuuqaa dadka masiixiyiinta ah. dawladda waddankaasna ma kala jecla ayuu ku leeyahay sida dalka u dhagay. haddaba bal aynu eegno sheeko amuurtan ku aadan oo saacadihii ugu dambeeyay soo baxday. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu amar siiyey waaxda gaashaandhigga ee Maraykanka inay u diyaar garowdo tilaabo ciidan oo laga qaado dalka Nigeria haddii dawladdu ay sii wado ogolaanshaha dilka masiixiyiinta. erayga bal u fiirso, ogolaanshaha kuwaasi oo ka dhacaya buu yiri gudaha dalkaasi. hadalkan Trump ayuu wuxuu ku daabacay bogogiisa baraha bulshada isagoo muujiyay caro xooggan oo ku wajahan xukuumadda Abuja. Trump wuxuu ku andacooday in Maraykanku si degdeg ah u joojin doono dhammaan gargaarka iyo taageerada uu siiyo Nigeria, isagoo ku eedeeyay dawladda waddankaas inay ku guuldareysatay inay ka hortagto falal uu ku tilmaamay xasuuq ka dhana dadka masiixiyiinta sida hadalku u yiri. madaxweynaha Maraykanka ayaa ku nuuxnuuxsaday in Maraykanku si buuxda u geli karo waddankaasi oo waa sida hadalka u dhigaya huban buu yiri fadeexado si ciidamadaasi loo diro gabi ahaanbana ay u dabar gooyaan waxa uu ku tilmaamay argagixisada islaamiga ee geysanaya falalkan naxdinta leh. Trump oo caan ku ah hadallada adag ee siyaasadda ee arrimaha dibadda ayaa horay ugu dhaliilay dawladaha Afrika amni darro iyo kacdoon diimeed. ha yeeshee hanjabaadiisana cusub ayaa abuurtay walaac weyn oo dhanka diblomaasiyadda oo gudaha Nigeria iyo caalamkaba imika ka jirta. dawladda Nigeria weli kama aysan jawaabin si rasmi ah hadalkan cusub ee ka soo yeeray Maraykanka, balse falanqayaal ayaa sheegaya in tilaabo kasta oo military ay wiiqi karto xiriirka labada dal ee sii jireenka sanado badan. waa xaalad u baahan feejignaan dhanka diblomaasiyadda ayuu yiri qabiir siyaasadeed oo fadhigiisu yahay Washington, isagoo ka digay in dagaal cusub oo Afrika ka dhaca saameyn weyn uu ku yeelan karo gobolka oo idil. way haddaba ninkii Trump mar uu hanjabay Iran oo uu yiraahdo shacabka magaalada Tehran madaxa intay gacmaha saartaan ka baxaan magaalada. mar uu yiraahdo waan naqaanaa meesha ku sugan yahay hogaamiyaha sare Iran waa khaarijin karnaa. mar Putin uu hanjabay xitaa uu yiraahdo ka shaqayn doona dagaalka duusan joojin. mar wuxuu isku qaadaya xaggaas iyo Kuuriyada Waqooyi wuxuu leeyahay uma ogolaan doono inay hub samaysato. mar xaggan bariga dhexe imaanaya wuxuu leeyahay naar baan ku afuufaya Mareyka Gaza. mar xaggaas iyo Venezuela uu jeedaa wuxuu leeyahay Maduro tilaabaan ka qaadayna. mar Gustavo Petro madaxweynaha Colombia ayuu haddana ku jeesanaya. intaa kaliya kuma eka. mar Afganistaniyiintii iyo Taliban ayuu ku jeesanaya wuxuu leeyahay nagu soo wareejiye saldhig. mar Shiinuhu hanjabaya wuxuu leeyahay waxaan ku dhufanaynaa 100%
canshuuraha ganacsiga hindiya xitaa wuxuu leeyahay haddaysan joojin shidaalka ay ka iibsanaysa ruushka tilaabaan ka qaadi doonaa intaa oo keliya kuma qoobna meel walbuu gacanta gelinayaa adiga maxay kula taa daawade qaybta hoose ee fariimaha noogu reeb ra'yigaaga inta ayaan kusoo gabagabeynayaa saaka barnaamijkii xulashada wararka waana ku mahadsan tahay daawade daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyadan iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha allah inta ka horeysa nabadgeli